بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan dhageystayaal daawadayaal waxaan noo suurto galay inaanu khadka telefoonka dibadda kula xiriirno mudane Cabdilaahi Yuusuf Cabdilaahi Isim ku magac dheer isla markaana ahaa aqoon-yahankii hore ee Soomaaliyeed iyo waliba ciidamadii saraakiishii ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka jamhuuriyaddii xilligii dowladda dhexe ee Soomaaliya waxaan wax ka weydiinay bal xaaladda guud ee dalka mudane haddaad maqasho Cabdilaahi bal guud ahaan adoo soo koobaya xaaladda dalku sidee u aragtaa maadaama aad ku nooshahay qurbaha dalka muddo dheer ku maqnayd بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومهدسنتهاي وانا كسلاميا سلاميدا guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba waa salaamaya intaas marka aan iraahdo Soomaaliya waa geed weyn oo salka ka qalalan caleemo iyo ubax iyo miro laga gurto iyo hoos gabaad laga dhigtana laga sugayo waa gartay sida maanta dunida aynu joogno ay u muuqato iyo sida hoggaanka dalka haday tahay federaal iyo haday tahay maamul goboleed wax ku socdaan waxa muuqata Soomaaliya bad biri dhaqan diin iyo taariikh intaas inaan iyo midnimo intaba inaysan gacan ku jirin haday sidaa ku sii socoto arintu sidaas ahaatana waxaynu maanta haysanaa waa magac asaguna ma sii jiri doono Soomaaliyana waxay noqon doontaa Palestine 2 mudane Cabdilaahi waxaad muujisay dareen hor leh oo wadaniyadeed maxaa ku muuqda isleedahay hadii aad tiri waxaanu haysanaa magac kaliya oo bal arinta noo faahfaahay faahfaahin uma baahna mar haddii birigii la isku haysto badii la isku haysto diintii la isku haysto taariikhdii la isku haysto oo xalane oo taalada daljirka dahsoon waxaad moodaa dadku xalane inaysan la soconin macnaheeda xalane waa taalada daljirka dahsoon ama taariikhda dalku leeyahay kuwa ugu mudan ayay ku jirtaa waxaa degan sayn cadaalihi Yurub halkaas waxa ka muuqata nasiib darrada wadanka haysata marka Soomaaliya bad iyo biri iyo taariikh iyo diin iyo midna gacan uguma jirto faahfaahin kale ay u baahan tahay lama arko waa gartay marka ka socda waa gartay mudane dhawaan waxa dhacday in dowladda federaalka Soomaaliya ay hore u sheegtay inay ciidamada Itoobiya iska saarayso isla markaana khilaaf badan kala dhaxeeyo arrimo maalmo ka bacdina waxa soo baxday oo dhawaan ah in dowladda Itoobiya ay noqotay ciidamada AUSOM sanadkan horaantiisa aynu hadda bilowday 2025 ay ciidamada ugu badan noqon doonaan aragtidaasi see kula muuqataa siyaasadda dowladda federaalka Soomaaliya dalka metelisa Soomaaliya dowlad iyo midnimo midna gacan uguma jirto Itoobiya iyo Kenya marka laga soo tago gumaysigii saan cadaalaha ee Yurub waa labada wadan Soomaaliya ku ahaa mar walbaba burburinteeda iyo baabiinteeda ku ahaa maaragtay involvedka ku ahaa ama ku hawlana maanta faytino Soomaaliya maantay Itoobiya waxay soo gumaysanaysay oo dhul Soomaaliyeed oo xoog lagu siiyay waliba lagu ilaaliyo ay ku haysatay muddo qarniyaal ah Kenya si la mid ah maanta haddaad Itoobiya wax ka sheegto ama Abiy Ahmed wax ka sheegto kuwii 100 sano la soo gumaysanayay oo la soo dilaayay baa dadku ugu hormarayay inay ku dilaan oo dhiigaaga ku janna tagayay
Kenya waa la mid haddaad Kenya maanta wax ka sheegtid marka la soo gumaysanayay ayaa ku dilaya marka mudane ma waxaad leedahay eedaas yaa iskale baad leedahay haddii ay arrintaasi jirto midnimada maxaa ku dhacay midnimada dhowr jeer ku celcelisay midnimada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxaa ku gudban sooma midaysna dalku hadda si la mid ah haddaad maanta madaxweynaha ama xukuumadda dalka Soomaaliya hadda magaca wadata haddaad wax ka sheegtid waxa ku dilaya mid xiraq waxooti ku jira oo NHCR to ay siiso maalintii hal mar 24 hours saxan bariis oo ka soo haray dagaaladii labaad ee dunida kaas ku dilayo ku jira tagay maxay macnaheedu tahay marka wax kala ma khaldana waxa kaliya oo khaldan oo u baahan in shacabka Soomaaliyeed ay gartaan awalan waa inay gartaan shacabka Soomaaliyeed horta waxa ay rabaan waxa ay rabaan waa hogaamin dal iyo dad waxa ay rabaan mar haddii hogaankii dalkiiyo dadku aysan mudnaantaas lahayn oo kuwii mudnaantaas lahaa oo hogaamintaas mudnaa oo dalkan iyo dadkan inay gacanta ku dhigaan oo dhibaatada jirta yiri waa xalinaynaa oo annaga maaragtay xal u ah mar haddaysan ka muuqan mas'uuliyadaasi dhibaatadu meel kale ma jirto cid kale mas'uul kama ahan waa hoggaan la'aan laga soo bilaabo xasan lagu xijiyo hebel madoobe oo baarlamaanka ah iyo ragga la maaragtay generationka gobolada haysta inta ayaga maaragtay la shaqeysata marka ummadda Soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay la yimaadaan isbedel dab ah oo dhaqso ah kaas oo ah inay dhammaan kalsoonida kala noqdaan oo aan wax dambe oo mas'uuliyada oo ay dal iyo dad u hayaan ilaa ma jirto Jubbaland waa aragnaa Somaliland waa aragtaa Puntland waa aragtaa Xamar waa aragtaa Baddi waa aragtaa Biriga marka wax laga suwi karo oo maanta Axmed Madoobe iyo Aadan Madoobe iyo Xasan laga suwi karo iyo ragga la generationka la maaragtay ka qaybta mas'uuliyadda maanta Soomaaliya ehelna uma aha mas'uulna nooma aha waa in kalsoonida shacabka Soomaaliyeed kala noqdo gaar ahaan kuwa xeryaha qaxootiga ku jira hooyooyinka dhalinyarada meel ay u dhaqaaqaan dalkoodii kala shaqalaanta ku ah nabad la'aanta ku ah nolol la'aanta ku ah banaanka u soo baxaan oo kalsoonida kala noqdaan mudane laakiin shacabku muxuu qaban karaa shacabku waa dad inta badan baa maanta wada arkasay dad badan baa dhulkii dawladda ay deganaayeen oo shacabka hay 34 sano ku noolaa ay dawladdu ka xaaqasay muddooyinkan magaalada Muqdisho isla markaana la sheegayaa warar kulay laga helayo bulshada dhexdeeda in ganacsato lagu wareejinayo dhulkii in danta guud aan dib loogu celinayn maxaa shacabku qaban karaa bay kula tahay intaas arrimahaas oo dhan baba dhacayeen eray hore shacabka hawsha aan u diray waa inay yiraahdaan kalsoonidii waa kala wax kalsooniyo uma hayno hadduu yahay hoggaan federaala iyo hadduu yahay mid state ama maamul goboleed waa in kalsoonida lagala noqdo ma istaahilaan ehelna uma ahan dalkan iyo dadkan mana samata bixin karaan sidaas darteed waa in lagala noqdo shacabka Soomaaliyeed banaanka soo istaagaan codkooda ku ciil baxaan kacdoon sameeyaan isbedel dab ah oo dhaqso ah oo xisaabtan dab ah oo lagu garanayo qofkaas inuu mas'uuliyadiisa ka soo bixi waayay ayna tahay in lagala noqdo mas'uuliyadda oo la casilo waa arintaas kaliya baa xal waa waxa Soomaaliyeed ma ku muuqata dadku haddaan kuugu daro Feitino haddaan kuugu daro Muqdisho iyo waxa ka socda muddo hadda laga joogo sanooyin ma xusuustay intay ahaayeen ayaan waxaan la kulmay documentary ka hadlaya taariikhda iyo maaragtay Soomaaliya runtii waa documentary ama barnaamij educational ah taariikh fog ka soo sheekaynaya wax badan qofka Soomaaliga u kordhinaya oo waliba aad loo qorxiyay aad loo buunbuuniyay sidaan sheekadii ula socday oo u dhageysanayay oo ay xiise igu sameeynayay baan hal mar soo baraarugay sidii qof furda ka soo kacay oo aan la socon barnaamijka iyo wixii aan dhageysanayay in maartay ninku cusub oo kale kadib markii ninkii warka daadinayo nin cadaan uu yiri Muqdisho waa the
fastest growing maaragtay capital city maaragtay waa magaalo madaxda ugu dhaqsaha iyo dhismaha badan dunida maanta waxayna soo noqon doontaa Muqdisho u socotaa inay noqoto sida dhismaha iyo maaragtay waxa ka socda inay noqoto number 1 maaragtay magaalo madaxyada dunida ereygaas waxa ereyay qabsaday markaasaan sidii wax uu ka soo baxay inta soo baraarugay waxaan is weydiiyay oo dalkan aan nabad iyo midnimo iyo dhaqaale iyo aqoon iyo nabadgelyo midna haysano intaas oo jin u dul dhooban tahay cidda maaragtay halkaas gaarsiinaysa ayay tahay su'aashaas aan is weydiiyay jawaabtii soo baxday waxay noqotay xamar lama dhisin waa la dhistay macnaheedu yahay ula jeedid waxaan ula jeeday waxay ahayd waxa hadda socdo oo aad ka sheekeynaysid barakicinta danta guud dhismaha socda xamar waa la dhistay lama dhisin xamar dad baa dhistay gooni ah gaar ah ilaa haddana aysan Soomaalida iyo kuwa dulaaliinta ah iyo kuwa madaxda midna fahamsanayn xamar lama dhisin dad Soomaaliyeedna ma dhisan hanti Soomaaliyeedna laguma dhisin ajnabi baa maal gashaday waxa dhulka dadweynaha looga kicinayo oo loo gadayo waa niman dulaaliina nimanka gadaya waxa laga gadayaa waa Yuhuud iyo Jarmal iyo Ingiriis iyo Faransiis lacagtoodii weeye barina loogooyin bay la imaanayaan Palestine sidii dhulkeeda loo gatay sidee marka arintaasi suurtagal u tahay mudane waxay tahay macnaha dad ajnabi dulaalin Soomaali ka noqonayso mise ganacsatada konton kun oo la siiyo bay ganacsato ku yihiin cidda ay wax ka gadayaan ma yaqaanaan waxa ay dhisayaan cid lama yaqaanaan waa soo dhiibay konton kunna waa u qaatay dalkan marka shisheeya ayaa gacanta ku dhigay Soomaaliya siday ku socoto haddaan shacabka Soomaaliyeed la imaanin isbedel dhab ah oo dhaqso ah Soomaaliya bad iyo biri iyo taariikh iyo midnimo midna gacan uguma jiri karto uguma jiri doonto magaca kaliya oo hadda la haystaana ma sii jiri doono Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed waxaa laga rabaa kacdoon dhab ah isbedel dhab ah xisaabtan dhab ah oo dal iyo dad iyo midnimo mana istaahilaan nimanka maanta ehelna uma aha inta maanta maaragtay hoggaanka dalka gacanta ku haysta hadday gobol tahay iyo hadday state tahay laakiin mudane waxa socda la barakicinayo marka barakicinta iyo banaynta iyo dhismaha waa ajenda dibadda laga soo guuriyay xasan iyo rakaabkiisuna dulaalin bay ka yihiin mana lahan ayagu mana dhisanayaan shaqana kuma laha laakiin dhulkii danta guud ee dawladda weeye waxa meelaha laga shacabka laga rarayaa macnaha xageema waxa leedahay dad kale la siinayaa sidee arrinkaas suurtagal u yahay dad kale dee waaba la siiyey oo dad kale haddaan la siinayn dee lagama barareen dadka degan in dad la siiyey waa caddahay laakiin waa ganacsato Soomaaliyeed baa la leeyahay oo dee magaalada lacag haysto oo dhaqaale haysto oo bedelaya baan ku yiri dee faytin ma aan baan ku yiri dee waa gartay waa ku sheegay ma aan waxa shisheeye maalgelintiis weeye Soomaaliya hebel baa la yimid maaragtay 100 milyan wuxuu ku gatay iyo 50 milyan xagee bay ka keenay Soomaaliya kulligeed qaxooti weeye ana 30 sano qaxooti 50 sano qaxooti ah banaanka jooga inta xamaal ku jiray niga shaqo badan ma jiro 10 kun waan gartay malaayiinta lacagta waan gartay Puntland man dad baa gadanaya taa waan kula fahmay Palestine dhulkeeda waa la gatay maalintii dambana ciidan iyo qoryaal loo yimid annaga la isburloogooyin meeshii Palestine aaday baa Soomaaliya ku socota haddaan shacabka Soomaaliyeed la imaan isbedel degdeg waa gartay maanta Puntland waxay sheegtay ay ku adeegsay dawladda dhexe federaalka Soomaaliya in argagixisada Daacish buralida lagula dagaalamayo ay isku day sameysay dawladda dhexe wasi hadalka u dhigeen wasiirka warfaafintu ka hadlay inay fashiliyaan maxaa ku muuqda halkaas arintaas ay kula muuqataa inagoo barnaamijka gabagabadii taagan waxyaabaha aan wali Soomaalidu fahmin oo la rabo inay dib isugu noqoto
oo maskaxdeeda dib ugu noqoto waxa kamid ah Soomaaliya magaala madaxdeedu waa Muqdisho madaxweynaheeduna waa Xasan inta dawladnimadu sidaas tahay oo magaala madaxdu sidaas tahay Puntland baan nabad noqon karin Somaliland baan noqon karin Kismaayo noqon doonin soo ma fahmaysid Muqdisho noqon doonin marka maalin walba mar haddaan wax maamul iyo dawladnimo iyo sharciyad iyo kala dambeyn midna lahayn ma jiri karto marka meel maaragtay caafimaad qabi karta maskaxdii iyo wadnihii Soomaaliya waa Xasan iyo Muqdisho labadaas oo jiran in gacmaha iyo lugu caafimaad qabaan oo qurux badnaadaan ninka sugaya waa nin maaragtay meel kale ka yimid laakiin mudane haddii khilaaf haddii khilaaf yimaado oo arrintii yimaado mandaqadaada qofku soo mas'uuliyiintu isku mid ay karaan mandaqadooda dhistaan dabcan oo ay dadka ku nool ay si wanaagsan u maamulaan maxaa ku jabantaa waxa ku jaban baan kuu sheegayaa waxa ku jaban waa laba arrimood weey horta awal waxa ogaataa ninka Soomaaliga ah maalinta xil loo magacaabo ama madaxweyne ama wasiir xataa agaasimo ka dhig maalinta la magacaabo maalinta ku xigta waxa u yeera safaaradaha wadanka jooga ayaa u yeerta asagoon la kulmin shaqaalihii loo dhiibay asagoon wasaaradiisii arkin asagoon waxa uu samayn doona arkin asagoon wax qorshe oo dajiyay jirin ayuu hor fariistaa maxaan ku yiraahdaa Faransiis iyo Ingiriis iyo Mareykan maadaama wax u diyaarsanaysan jirin ayaga u diyaariyo waxa ay rabaan waa gartay marka taasuna ku soo shaqo taga waa gartay wax shaqo ah waayahay maxaa ku talin lahayd maadaama tahay khabiir haddana ka mid ahaa sirdoonka Soomaaliya ee dawladda dhexe ilaa naxariis Maxamed Siyaad Barre madaxweyne ka ahaa khabiir aqoon badan aad tahay dalka dibadiisana aad ku nooshahay intii burburkii ilaa 1991 ama ka horba aad ka dalka baxday khabiirna aad tahay diblomaasi dalka dibadiisa ka shaqeeyana aad tahay bal taladaada soo gudbi dalka Soomaaliya jamhuuriyadda maxaa u dan ah iyo shacabka Soomaaliyeed ba aan kuugu daro madaxweynaha Soomaaliya iyo kuwa wasiirada waa loo soo qoraa waliba marka loo yeero movie baa loo shidaa filmaa loo shidaa filmadaas waxaa lagu tusiyaa nimankii madaxda Afrika ka soo noqday taariikhda tirada badan inta aynu ognahay oo la dilay inta la asasiineeyay inta dalkoodii la gambiyay inta saaxiib dhow laga dhigtay oo ayaga danahaas fuliya sidii loogu hawlgalay baa la tusiyaa nin walba jooradu xaaraa markuu intaa arko wuxuu ku khasbanaadaa marka waxa loo soo yeeri saan baa samaynaysa haddii kale kuwaas meeshay mareen aad hadda daawanaysay ya baad maraysaa waaye maxaa dana marka taladaan soo jeedinayay marka waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee dalkooda qaxootiga ku ah ee nolol la'aanta ku ah ee aqoon la'aanta ku ah ee caafimaad la'aanta ku ah ee midnimo la'aanta ku ah oo ay sababta u yihiin kuwa yiraahnaga mas'uuliyadaas qaadayna oo fulinayna oo hagaajinayna oo aysan ka muuqan eelkana u ahayn in lagala noqdo kalsoonida gobol iyo degmo iyo tuulo in kacdoon laga bilaabo shacabku banaanka u soo baxo yiraahdaan nama matalaan taas markay dhacdo madaxweynaha wadanka ee aan dooran doono ee soo socda adan ku sheegi doona adan soo hormarinaya bareerahayga ee Soomaaliya midnimadeeda qarannimadeeda inay soo noqoto waxay ku xiran tahay inta ka baxday in la eg inay bixiso waxaan uga jeedaa madaxweynaha imaan doona shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan ballan qaadaynaa inaan codkayaga siino nin ka yimid 0.5 oo nin dambe oo noo sheegta qabiil iyo laandheere iyo maaragtay lacag iyo reer hebel baa wato uusan noo imaan codka shacabka Soomaaliyeed waxa iskala 0.5 Soomaaliya nin kasta oo buuxiya shuruudaha madaxweynenimo aqoon leh Soomaalinimadiisu caddahay mas'uuliyadiisu maaragtay muuqato ya ma filayo inuu ka liiran doono Axmed Madoobe iyo Xasan iyo kuwa la midka marka
madaxweynaha soo socda waa sida kaliya Soomaaliya midnimada iyo qarannimadeeda ku heli karto aniga muuqata waa in madaxweynuhu ka yimaado 4.5 cod nin kale oo cod shacabka Soomaaliya dhexdiisa ku leh ma jiri doono meesha rabaa ka yimaado waa tahay waad mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa mudane Cabdilaahi Yuusuf Cabdilaahi Isim oo aan dadka khadka dibadda soo ku sugan qurbaha aanu khadka telefoon kula xidhnay waana ku mahadcelinayaa waana khabiir hore oo ka mid ahaa sirdoonkii qarankii jamhuuriyaddii hore ee dowladdii dhexe Soomaaliya ee burburtay 1991 mar labaad baan ku mahadcelinayaa mudane